waxa aynu ku ballanay qaybtii labaad ee dilaagii weynaa ee Adolf Hitler ku soo dhawaada barnaamijka Haldoor magaciigu waa Muscab Maxamed Maxamuud halkanina waa channelka Caamir Yar أقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما أنت تروينا يا درة الكون طاهر نبض خافقنا فالجرح كبلنا فاغسل معاصينا sida aynu soo sheegnay Hitler waxa uu ku guuleystay inuu noqdo madaxweynaha dalka German hadaba waxyaabaha Hitler u fududeeyay inuu noqdo madaxweyne ayaa waxa uu horeysay nacaybka uu qabaysin jiga saamiga ah ama dadka Yahuuda ah hadaba hadii aynu dib u eegno waxyaabaha ku kalifay inuu nacbaado Yahuuda waxaynu oran karnaa nacaybka Hitler ee Yahuuda waxa la yiraahdaa inuu ka bilowday markii uu joogay magaalada Feyna oo ay ku noolaayeen jaaliyad Yahuud ah oo ka soo qaxay dalka Ruusiya waxa kale oo saameyn ku yeeshay buugaagtii uu qoray Martin Luther ee magaceedu ahaa When the Jews and their Lies inuu Hitler ku sumoobay qoraagan waxaad ku garan kartaa buugga uu qoray Hitler ee ku saabsanaa noloshiisa iyo waxa uu si weyn uga amaanay Martin Luther oo ay wadaagaan nacaybka isirka saamiga ah Hitler waxa uu mas'uuliyadda dhibaatooyinka dhaqaale iyo tan bulsho ee ka jirtay dalka Germany dhabarka u saaray dadka Yahuuda ah oo uu aaminsanaa inay adduunkan dib u dhac ku yihiin oo ay waajib ku tahay qof walba inuu xasuuqo waa sida uu aaminsanaa Adolf Hitler isla markii uu Hitler xukunka qabsaday waxa uu bilaabay inuu dadka Yahuuda ah uu ka qaado dhalashada dalka Germany iyo waliba xuquuqda ay leeyihiin oo ay ka mid tahay inay cadeeyaan inay qabtaan shaqooyinka bulsho inay dhex galaan dadka Jarmalka in gabdhahooda la guursan iyagana aysan wax guursan waxa la sameeyay xaafado ay Yahuudu leeyihiin oo ay cid kale gali karin Yahuudiga ka soo baxana waa la toogan jiray isla markii dambe waxa la sameeyay campus ama xeryo lagu xasuuqo dadka Yahuuda ah waxa lagu qiyaasaa in 6 milyan Yahuud ah uu dilay Adolf Hitler intaas hadaynu kaga gudubno nacaybka uu qabay Adolf Hitler dadka Yahuuda ah waxaynu galeynaa siyaasadda Adolf Hitler dalka Jarmalka Hitler dalka Jarmalka gudihiisa waxa uu ka bilaabay isbedelo fara badan oo ay ugu horeyso inuu dhisay ciidan xoog badan oo dadka dhalinyarta ah wax lagu qasbi jiray inay ciidanka ku biiraan inuu hagaajiyay dhaqaalaha dalka Jarmalka kadib hoos u dhac ku yimid inuu soo ceshtay kalsoonida shacabka Jarmalka ah Adolf Hitler waxa uu bilaabay inuu jabiyo heshiisyadii uu la gaaray dagaalkii koowaad ee dunida oo waxa uu ciidan geeyay Finland oo ahayd dhul aan ciidan loo ogoleen Yugoslavia iyo Poland siyaasadda Adolf Hitler waxa ay ku dhisnayd gardarro wax kasta xoog lagu raadsado Adolf Hitler waxa uu nacayb dhab ah u qaaday dalalka Britain iyo Faransa oo ahaa labada cadow ee dalka Jarmalka ee dagaalkii koowaad sababta uu ahaa in uu guuldareyso dalka Jarmalka Adolf Hitler waxa uu ka baxay ururkii qaramada waxa uu bilaabay inuu awood ciidan isticmaalo bilowga dagaalkii labaad ee aadka u weynaa dawladaha Yurub oo dhan ay ku hoobtaan dalka Britain iyo Faransa oo ahaa labada quwadood ee Yurub waxa cabsi badan gelisay siyaasadda gardarada ku dhisan ee uu wado Adolf Hitler waxayna bilaabeen siyaasadda maslaxada ah oo wax kasta oo Adolf Hitler oo uu baado ay siiyaan si ay uga hortagaan dagaalka saddexaad ee Yurub ka dhacay balse Soomaalidu waxay ku mahmaadaan niman shani ka reebin sharci kaama reebo waxay isku dayaanba inay dagaalka hortagaan oo maslaxaad wax ku wadaan ugu dambeyntii waxay ka maarmi waayeen inay dagaal la galaan Adolf Hitler iyo dalka Germany oo idil oo qatar ku noqday dhammaan Yurubta hadaba qaabka dagaalka u dhacay iyo waxa sababay iyo sida uu Hitler ku dambeeyay waxaynu kaga hadli doonaa qaybta saddexaad. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi